madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la hadlayay telefishinka dawladda ay maamusho ayaa sheegay in dawladihii hore ee dalka soo maray dawladiisu ay kaga duwan tahay in wax isqabqabsi ah uusan soo kala dhexgelin dhowrkii bilood ee ay jirtay dawladda laamaha dawladda Soomaaliya oo dawlad walbaba ama xukuumad walbaba ay meel wax soo gaarsiinaysay anagu waxyaabihii ugu horeeyay oo aan ka hadalno waxay runtii isbedel dhaqan siyaasadeed inuu yimaado oo koow ka tahay dawladda dhexdeeda inuusan buuq iyo isqabqabsi iyo khilaafaad uusan ka dhicin dawladda dhexdeeda maxaan ku radaa kala shaki iyo aamin darro aysan imaanin in ummadda shacabka Soomaaliyeed loogu shaqeeyo sidii amaanada ay noogu dhigteen oo ah danta guud oo dan gaar ah laga tago madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dhanka kale baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ugu hambalyeeyay meelmarinta ay meelmariyeen sharciga isgaarsiinta dalka xaqiiqiyan waa uu hambalyeynaya xildhibaanada sharafta leh ansixiyay sharcigan waxaan ogahay sharcigan in muddo dheer la horkeenay baarlamaanka ayna diidanayeen runtii annagoo 6 bilood joognay oo dawladuna xukuumadana ay joogtay 4 bilood in la horgeeyo ay ansixiyaan waxaan leeyahay waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka runtii xukuumadan ay gaartay iyo haddii la helo wada shaqeyn dawladda dhexdeeda ah in shacabka loogu shaqeyn karo sida ay iyagu shacabku ay doonayaan maxaa yeelay waxaan ka shaqeynaynaa danta guud iyo hay'adaha ganacsiga naftigooda isgaarsiinta maamulaha iyaga naftigooda waxay naga siiyeen gacan waxaan rajeynayaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo aqalka sare iyaguna inay maxaa yeelay waa u tagaysaa iyaguna waxa laga rabaa inay ansixiyaan meeshii ay ku qaadatay golaha shacabka bil ka yar waxaan rajeynayaa in aqalka sarena ay ku qaadato 10 bari iyo wax ka yar si aan u saxiixo oo sharcigan ugu dhaqan galo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Axmed Kismaayo oo horey ugu tirsanaa BBC-da sidoo kale waxa uu tilmaamay in laamaha ammaanka kaligood aanay sugi karin ammaanka dalka lagaba maarmaana ay tahay inay kaashadaan shacbiga waa sida hadalka uu dhigay ayaan waxba galabsan marka amnigu waa wax ka dhaxeeya xukuumadda baarlamaanka dawladda guud ahaan isku soo qaad iyo shacab weynaha Soomaaliyeed marka haddii shacabku ay nagala shaqeeyaan waxaan xaqiijin karnaa inaan ammaanka magaalada Muqdisho aan sugno horta waxaan jeclahay inaan u tacsiyeeyo oo aan iloobin oo aan fursaddan uga faa'iideysto geeridii ku timid Dr. Maxamed Jaamac Salaad iyo wariye Axmed Kismaayo oo labaduba bulshada Soomaaliyeed qiimo weyn ku lahaa Ilaahay ha u naxariisto naxariistiisa jannis Allah siiyo eheladoodii iyo saaxiibadoodina samri iimaan Allah ka siiyo Xasan Kaahiye Somali News